gobolka Laascaanood annagoo gudidii reer Laascaanood uqaal iyo culimo iyo codkar iskugu jira ee la qabtay ee la yiri dhibaatadii halka ka dhacday ka soo taliya annagoo u fadhina waxa dhacday wasiiradii iyo culimo iyo ragii la socday in ay qiimayn gudidii iyo culimadii iyo garaadadii iyo dadkii u ahaa madaxda Laascaanood inaana lagu qiimayn fadhigii iyo taladii waxa dhacday in la sameeyay gacan dhaafka adduunka dhan hadir ogyahay oo meel walba ka dhacay taas oo loo fadhiyay ugu horeysay oo ay ahay tashigaasi dhibaatooyinka ka dhacay Laascaanood kii ugu dambeeyay iyo kii ugu horeeyay sidii looga wada tashan lahaa haday tahay maamulka dalka xukuma haday tahay shacabka deegaanka degan dhibaatadaas oo ku koobnayd gobolka Sool oo aan qusayn dalka intiisa kale in dawladda meesha xukunta iyo shacabku ka tashadaan waxa ay ahayd oo talada lahaa dadka deegaanka haday garaad tahay haday caaqil tahay haday culimo tahay in la tashado la weydiiyo waxa ka jira wadanka waxa dhacday nasiib daro inay saan u dhacday waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed inaanan anagu raafin dadka inaanan shaqo ku lahayn inaan waxna laga weydiin inaanan talo iyo tusmo midna ku lahayn haddii ay ku wada noolayd maamulka Somaliland ayaa wuxuu la yimid wafti laga soo diray magaalada Hargeysa annaguna waxaan ahayn dadkii gobolka Sool ee wax garadka ahaa oo ammaanka ka shaqeynayay ilaa iyo maalintii magaca Laascaanood la bixiyay ammaanka ka shaqeynayay baan ahayn shir baan u fadhinay talaan u fadhinay dejinta Laascaanood iyo ammaanka Laascaanood iyo nabadgelyada ka shaqeynay ka bacdi iyadoo aan waxba nala weydiin oo wax garadkii gobolka Sool la weydiin waxba ayaa maamulka Somaliland wuxuu sameeyay inuu dadkii deganaa lagu guro baabuur dabada loo geliyo habeen madow dabada loo guro waxba nalaga weydiin waxaan u sheegaynaa inta afka Soomaaliga ku hadashay intii diinta Islaamka sheegataba inaan hawsha annagu wax aan ku lahayn ayaan jirin aanu ka xunahay aanu aad iyo aad uga dhibaataysanahay maamulkuna uu waxba naga weydiin arintaasuna arin aad iyo aad dhibaatadeeda u la tahay waana arin la dadajiyay oo si degdeg loo qabtay bay ahay arinta aad baan uga murugaysanahay waana diidanahay waana ka xunahay waxaan u sheegaynaa Soomaalidu meel kasta caalamka iyo daafaha dunida ka kala joogto arinta inaan anagu wax tala ku lahayn oo talada aan shaqo ku lahayn baan halkan ka cadaynaynaa waxaan u sheegaynaa gobolka Sool cid kasta oo mas'uuliyiin ku nool dadkaasu waa si qaxaba loo raray qof qoro shay qaati ma lahayn dadka alaabtoodii iyo hantidoodii guriyay lahaayeen baabuur bay lahaayeen hanti ganacsi bay lahaayeen qaar baa xoolo nool lahaa digaaga u yar xoolaha nool qaar baa waxay lahaayeen boqol digaaga qaar baa waxay lahaayeen konton ariya dad magaalada degan bay haayeen hantidoodii iyo dhaqaalahoodii waxaan aad uga codsanaynaa dadka gobolka Sool ku nool ee mas'uuliyiinta ciday doonaan ba ha ahaadeen in hantida gacanta lagu dhigo dadka hantidoodii gacanta loogu dhigo assalaamu calaykum bal hal iyadoo gudida magaaladuna ay nala ogeyd oo garaadku uu ka qabtay shir halkaas oo dadku ay ku soo kaceen oo buuq badani ka jiray isagoo garaadku xal u arkayay in hawshaas gudidaas bal loo diro lana joojiyo kacdoonka magaalada lagu dejiyo kadib waxaanu fadhinay muddadaas dheer oo aanu kaga xajoonaynay kaga hadlaynay munaaqashaynay bal sidii xal loo raadin lahaa marka wafdida ka timi Hargeysa oo xukuumadda ka socota kulay markii ay timi kadib waxa soo baxday in dadkii la raray annagu marka dadka la rarayo waa dad deegaanka Laascaanood in badan deganaa caruurihii ku dhashay baa xaasas ku yeeshay marka waxaanu leenahay dadka haddii xitaa xukuumaddu u aragtay in la raro waxaanu leenahay sida loo rarayna sida xaq waafaqsan oo sax ma waxaanu leenahay insha Allah ta'ala haddii la rarayo ay sida xitaa ka fursan ayagu u arkeen sidaas waxay ahayd inay sidaas si ka bedelan u raraan waxaanu leenahay insha Allah ta'ala xuquuq bay leeyihiin waa dad muslimiina waa dad Soomaaliyeed xuquuqda Soomaaliya oo dhan way isdhex degan tahay waa wada degan tahay waxaanu leenahay xuquuqdooda waxa ka mid ah qofka muslimka dhiigiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharafkiisa waa ilaashan yahay intaba in qofka loo dhawro waa waajib marka oo la ilaaliyo marka isagoo haddana Soomaalinimadiina arrin khaas oo xaq kale noqonaysa waxa weeye dadka sida loo raray aad baa gobolka uga xun yahay gudidayada fadhidayna waxa weeye wax tala ana kuma aanu lahayn waxna nala kama weydiin oo lama oran hawshaas jirta iyo gudida iyadoo aanu fadhino
oo shir u fadhino aanan guddigaana kulmin ayaa oo aanan golada madaxda ee timin aanan is arkin ayaa waxaan ku hor helay iyadoo la rarayo oo boolis lagu wareejiyey intaasaa marka aad iyo aad arrintaas looga danqaday sidaa la sheegayana hantidoodii waa kala firidhay meel walba waxbaa kaga kala lunsan carruuraa jira masaajidada la keeno hooyooyinkoodii iyo aabbahood dadkii la raray ay ku jireen arrimahaasina waa arrin aad looga naxo 4 ciyaala xalay masjidul hudaya la keenay oo la yiri ciyaaladaasaan haynaayo reerahoodii ka qaxeen marka waxaan leenahay waa arrin oo aabbahood iyo hooyadood laga qaaday waa arrin aad u naxdin badan marka insha Allah xilkuna iyaga mas'uuliyiintii sare ah oo gobolka xukuma nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyati qofka isaga laga xisaabtamaya waxa uu xumeeyay qofka madaxda ah isaga madaxa ku qaadanaya caruuraha yaryar iyo dhibaatada cidii u geystay isagay saaran tahay annagu marka aad baan uga xunnahay waxaan idin sheegaynaa oo kale dadkaasi qaabka aan u soo dhaweynay iyadoo la soo saaray marka Somaliland ay go'aan ku gaadhay xukuumadda Somaliland rag joogay oo madaxay ay yiraahdeen waraaqa ay magaalada ku joogaan baa loo sameeynayaa hadda culimada qaarkood halka fadhiya annagoo 3 nin aan u tagnay arrintii baanu ka wada doodnay waxaana loo markii dambe iyaguna ixtiraam fiican bayna siiyeen waxaanu niri wax waraaqa looma sameyn karo ay magaalada ku joogaan waanu isla qaabilay ilaa rag xidhxidhnaayo 10 iyo dheeraadana waanu soo dameynay waa soo deegnay saasay ku joogeen masaajidada ay odayaashii culimaduba ka hadleen dadka inaan la taabanin oo la daayo waxa dhacay qaarkood wax dilay oo dad ay ku bixeen nin gaari waday baa jiray oo ilmo jiiray rag hadda guddidan ku jira ayaa ilmaha wiil u dhalay baa ka mid ahaa marka markuu dhowr sano xidhnaa ayaan warkii helnay kadibna 3 nin annagoo aan hawsha u kacnay ninkii waanu barinay Cabdishakuur waxa weeye ducaale faarax wiina la joogay shalay ninkaasaa ka mid ahaa waxaan ku heshiinay isaga inuu saamaxo ilmihiisa yar waxa weeye wiilkiisa inuu saamaxo barkii kalena magaalada Laascaanood iyo dibadeeda aanu ka ururinay reer Laascaanood baa bixiyay ninkiina waa la sii daayay marka dadkaas oo kamid ah annagaana bixin iyaga waxaan u malaynayaa xaga dadka xitaa koonfur markaa ka soo guuray oo joogay magaalada waxay ku lahaayeen $100 iyo xoogaa lacag kale nagama soo gaar intaan ku niri lacagta wax ka soo bixiyay lacagta kale reer Laascaanood baa bixiyay marka insha Allah ta'ala saasaanu awalba u ilaalinay ummadda ee gobolka Sool ee arinta dagalka ku hayay fadhiyay baa lagu xumeynay waxaanu isleenahay bax kale maaha annaga cirdiyooda lagu dhaawacayo oo lagu burburinayo oo taladooda lagu luminaya waa maxay u fariisteen waa maxay halka wixii socday uga hadleen baa ummadda loo farageliyay arrintaasi arrin qancinaysan baaha waa laga hadlay ismadii gobolka Sool oo dhawaad degeysanayseen culimadu hore uga hadashay caalamka oo dhan baa laga hadlay qof kasta oo daneynaya gobolka Sool iyo qof kasta ku abtirsada dal iyo dibad meeshu jooga arrinta waa ka xun yahay maanta koomu kaga jira ragaasina waa ragii u fadhiyay dhangada laga soo goostay gobolka waqooyi galbeed ee Hargeysa dhangadihii baa dadkii walaalaha ahaa ee deganaa gobolka Sool ee Soomaaliyeed ee aan abtarsiimaha kala hayn ee deganaa dhangad lala dhaxgalay qayb kamida baa la saaray dadkaas waa caruurtayadii waa gabdhahayagii waa odayaashayadii waa dhalinyaradayadii waa isku nooshayadii annagay naga mid ahaayeen abtirsiimo kale ma lahayn dad baan waxaan ka maqlayaa koonfur galbeed iyo halka urahayagii iyo caruurtayadii iyo odayaashayadii iyo gabdhahayagii ku yihiin fool xumadaasa lagu sameeyay habeen madow baa loo dhaadhacay haddii bahday iyagoo aan urursan oo wax loo sheegin oo annaga nala kala xaajoon ba halka dadka baabuur lagu daabulay dhibta dhacday iyo gaadiidka lagu daabulay iyo haddii waxa la sheegayo dhan waxaas ka dhashay haday yimaadeenna waxay door moodeen intaanu la xisaabtami lahayn inay horta bal dadka ku majaara habaabiyaan oo ku qaadaan ummadda Soomaaliyeed aan abtirsama ahayn halka ku guraan ayaanu halka isugu nimid dhacdo fool xun oo aanan ogeyn oo aanan ka tashan oo aanan war iyo wacaala ka hayn baa ka dhacday arinta gobolka Sool gudidii u fadhiday midna ma ogeyn shaqana kuma lahayn waa wax aanu ka war helay iyadoo badiba la raray habeenimo la bilaabay barqanimo la raray gudida timid ee fadhiday ee garaadku magacaabay 45 ka ahayd hawshii u fadhiday gobolka Sool dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dhintay xildhibaankii Cabdirasaaq Xaaji Axmed iyo kuwii ka horeeyay aanu fadhinay
waxaanu kale u sheegaynaa arrintaa inaanan wax luga ku lahayn oo arrintaasi maamulka ay gaar u tahay waxaanu kale ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa inaanan annagu waxba ka qaban karin waxaan kaloo la dardaarmayaa dadkii halka laga barakiciyay waxaan leeyahay ilaahay nabar xaq darra idin ka dhigo ilaahay bedel khayr qaba idin siiyo waxaan idin leeyahay sabirka ogaada waxaan kaloo la dardaarmayaa ummadda gobolka Sool ku nool inay iska ilaaliyaan maalka dadkaasi ka tageen sida ugu macquulsan ay u gudbiyaan nin aad iyo aad u nasiib badan buu maadaama intaas gobolka Sool isku keenay oo ugaanka iyo ficilka intaas isku timi nin nasiib badan buu ahaa dadka gobolka Sool aad iyo aad baan arinta ugu mahadcelinaa isagana Allah u naxariistay wixii ka horeeyay inta ka bacdi walaalaha iyo koonfur galbeed arinta ay ku dhacday kama tashan umaanu shirin kuma fakirin kuma seexin kuma soo toosin waxaanu inii sheegaa mar labaad iyo mar saddexaadba arinta duulimaadka leen ku soo duulay arinta waxay dabada ku haya iyo meesha laga soo duulay waad ogtihiin anaguna waanu ka tacsiyanaa uma bixin waxaan kaliya oo xoojinayaa cuqaashi iyo culimadii meesha ka hadashay ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadalka asiibay intaas ay noogu dhantahay gudidii gobolku way fadhidaa waxa la kuma laha way ka xun tahay waxaanu kala gobaadinaynaa bulshada gobolka Sool ku dhaqan xoolaha iyo waxa ay arkaan ummaddaas ay ka tagtay ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay uga cabsadaan ururiyaan dadka mas'uuliyiinta ku wareejiyaan